dhigana haddii ninkii ama dhib raba inuu sameeyo ama wax kale sameeyo dadka uma yeero wixii uu isagu doono buu fushadaa. waxaa halkaa ka muuqanaysa war haddaanu nahay Puntland oo hanti ina ka gasho Somaliland oo businessku dadka ka dhaxayo dhacdadaasaa dhacday maxaa dawo u ah ama maxaa laga hela ama maxaa xal u ah. waa baaq nabadgelyo, waa ergo, waa ogeysiin labada maamul iyo labada shacab, khaasatan businesska dadka businesska ku jira oo isku xiran ay ogeysiin u tahay. axmedna aad baan ugu soo ogaadinaynaa inuusan falal kale iyo wax kale tiigsanayn uu ogeysiiyo wixii la kulmay warbixinteeda uu ka bixiyo. ninbaa wuxuu yidhi shan sharci maalkay ii dhaqeen oo boqorna ii sheegay. haddii shan maxkamadood saddex maxkamadood sheegta oo boqor buur madow sheegay oo uu maxamed siciid jibriil diiday oo maxamed siciid jibriil inagu aynu ku naqaanin businessa oo businesskiisu meel walba yahay. maxamed siciid ducaale halmaan hadal kuma jiro. waa wax dhib leh, laakiin ninkii cayrka ahaayoo ratiga kaliya lahaayoo ratigii nin ka dhacayo boqolka halaad nin ratigii ka dhacay wuxuu yidhi war haddee ilaahow nin geelle gartayda geli, ilaahow nin geelle gartayda geli. annagu dhigi mayno marka sidaas. waxaan u sheegaynaa ganacsatada labada maamul ama dowladood, waxaan u sheegaynaa wixii islaama, waxaan u sheegaynaa maxkamadaha inaan lacagtaa erga u nahay oo rabno sida ugu dhib yar in loo helo. sababtoo ah lacagtaas 4 sana ka soo wareegtay waxaa loo haystay axmed nuur uruus. dadka hantidaa lena dee maydi meesha laga soo guro nimankii yaqaan baa yaqaan. waa dad qarkaa ku nool, waa dadka badda aada, waa dadka meel walba mara. ninkii wixiisa haddee way doonan karaan. waa wada taqaanin dadka xijiyada gurta dhibta iyo hawsha iyo xoolaha ku keenan. aniga marka anigoo ku hadlaya magaca odayaasha iyo gobolka bari ama Puntland waxaan ka codsanaynaa ninka odagaayo hantidaas la jirto wax uu maanta daweyn karo inuusan la sugin waqti aan la daweyn karin. maanta diyaar baan u nahay inaan wax la daweyno sida loogu ergooday oo dadkaas iyo maamulka libinta looga sheegtay oo nimanka ergada uga tagay libinta uga sheegtana dee mid lamidaan u gudaynaayo waa u haynaa. waxaanuna rabnaa waxaa naga maqan inaanu dhabbada u qurux badan u marno, inaana wax ka xun lagu kalifin oo maxamed siciid uusan kalifin isagu. sababtoo ah weji bay lahayd, asal maydi bay joogtay, axmed nuur bay joogtay, maantay jaha kale iyo weji kale yeelatay. wax alla waxaan ugu baaqaynaa wixii wax ka qaban kara oo ehelkiisa oo qaraabadiisa oo cid kasta ah oo maamulka ah Hargeysa oo maamulka Puntland waxaan ugu baaqaynaa arrintaas sida ay u dhub yartahay baanu erga ugu nahay in wax looga qabto. annagu xog waxaanu haynaa 4 sano in axmed nuur laga lushi in hantidaa lalahaa berraa la keenayaa, bisha damaa la keenayaa, maxkamad baa xukuntay, waxayna weynoo dhow yihiin. haddee maanta haddii ninkii wax furdaamin lahaa wax is hortaagay waa dhibaatona haddee intii wax ka qaban jirtay iyo talo iyo tamiido iyo bay u taallaa sidii looga hortagi lahaa. waxaana ilaahay ka baryeennaa ninkii xaq lahaana xaqiisa in alla siiyo, kii xaq uusan lahayn haystana
in ilaahay ka bixiyo baaqayaga iyo ujeedada iyo inta aan ku darayaa waa inta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.